راديو قروة السلام عليكم جدّي أنا وقت أنت بدو أحبك ومسؤول من مجال الشنين أنا واحد تسمع جدّي يعني أرمى جدها إمام الله بالجوالة دمنا ومجرو جدّي يعني حق أولها هي إن مجال الشباب سيدا إحنا هم علينا أرمى جوالة بالجوال مركا وهم حمسنا يا وحياة أنا هذا أنا لكن لو نحوده معمول في دولة هي نوع أركائي كواحدة صوته أنا هذا شلي تبغى أخو فحلو صوف ولا مقارن كراي صوته شلي تبغى ما حتى ضد بوينغ كصوت جيدا كاركوت واحد ما عندي هاي ستان يوحى الله دري يوحى وشو كردنا يعني هذا أرنتها كشغورة وحياة أكو أركاي وراها والصحافات رئيسها وهولي dadka waxaan u diray maamul soo sameeyaan gobolada maamulka loo sameeyay waxa jira guddi ku shaqale waxa jira wasaarad ku shaqale maamul sameynta waxa jira dastuur iyo qaanuun loo raacaa jira hadda waxaan gacanta ku haynaa nidaamkii gobolada aan wali dowladka gaarna ay heer gobol ku dhisan lahaayeen ayaan gacanta ku haynaa marka ma garan karayo waxaan u arkaa anagu waxyaabo oo haba u badnaadaan waxyaabaha caadifiga marka ma garan karayo runtina wax faahfaahin oo buuxo wax naga sii guddigan magaca ay qaadanayeen iyo waxa ay yihiin waa xildhibaano ma aha xildhibaano qaarkood ka soo jeeda ma aha oo magacyada meesha ku qornaa aad ka garan karaysaan qaara gobolada dhaxaa qaara gobolada koonfurta Soomaaliya oo banaadir iyo sida shabeellada hoose iyo shabeellada dhaxaa marka ma garan karayo dadka hadda waxa ay meesha ka soo qaban karaan anigu mana fahansano waa tahay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso baarlamaankiina waad ku jirtaa guddigan uu ra'iisul wasaaraha dalka u magacaabay jubbooyinkana baarlamaankii iyo xukuumaddiiba ka kooban yihiin Jubbaland madaxweyne doorto shalay waa la socotaan idaacadaha iyo meel walba kastoo isgaarsiinta ay weli go'an tahay arintan ma u muuqataa xildhibaane in ay tahay qorshe lagu burburinayo masiirka shacabka reer Jubbaland oo madaxweyne doorto maamul dhistay oo nidaamkii federaalka buuxiyay shuruudahoodii waad mahadsantahay horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan iska bariyo waxa la leeyahay maamul aan dhisay madaxweynaha doorto waxaan anigu bil ka hor dadkii xildhibaanadii tagay ayaan ka mid ahaa dad badan oo mas'uuliyiin ayaa hawl waday dadkiina hadda ilaa hadda intay uga soo xiriireen waxaasay hawl u dhacday ma ayna dhihin dhinaca hawadana way xiran tahay oo telefoonadii qadka shirkadihii isgaarsiinta qadka waa ka maqan yihiin dad aan la xiriirin ma jirto mana ogi hadda anigu qofkaasaa la doortay ilaa iyo hadda ma dhihi kari waayo waxaan ogahay musharaxiin badan aan ogahay musharaxiintiina haddii ayna hadlin shaqsigii la doortay uu leeyahay anaa lii doortay keliya waxa weeye waa hal dhinac waxa aan warka ka helayno marka waxaa fiican inaan aan xaqiiqsano sida ay wax u dhaceen iyo sida wax loo doortay iyo waxaasoo dhan inaan ogaano iyo waxaa anigu igu dambaysa xaqiiqatan ayagoo shirkii laleeyahay 500 wax dooran lahayd hala makeeyo hala xulo konton oday lagu xareeyey meesha la yidhaahdo eelaboorka kontonkii oday ay
ay qaybsan doonaan gobolada iyo degmooyinka deegaan waxa lagu qaybsada laleeyahay oo beeliya laleeyahay soo qorta deegaanadiina iyo nin walba beel walba meesha ay sheeganayso oo guddi xaqiiqa raadinayo weliba u fadhiista arrintaas loo samaynayo aniga intaasaan ogahay wixii intaa ka dambeyn hawadii oo xiran qaar diyaarado lacab laakiin guddiga markaasee kugu muuqdaan yaa walaal guddiga markaa uu ra-iisul wasaare u magacaabay jubbooyinka iyadoo arrinta halkaas sidaa ay tahay maxaa ay kula muuqataa baad leedahay nadar guddigan anigu ma arko guddi xal keenayo ma arko waayo ma aha dadkii deegaanka oo lamale waxaas oo eegayso dhexdhexaadiya daraasaad kusoo samey lama dhihin lama oran arrintan labada maamul oo hadda oo nin walba oo wax sheeganayo soo dhexdhexaadiya ma la dhihin bal xaaladii tage qiimeynku soo sameeye dadkii deegaankaa tihiin dadka rabitaankooda soo sheega lama dhihin mandayka ay haystaan waxa ay yihiin anigu ma garan karaayo waa la magacaabay un baan maqlay ma garanayo kuwa waxa hal dhinac lagu xoojinaya inay yihiin iyo waxa cadasiya inay yihiin anigu ma sheegi karo laakiin hawsha loo diray iyo hawshaan oo hadda nimankan arrimaha gobolada waxaa shaqo kule guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada shaqo kule iyo wasaaradda arrimaha gudahana guddigaasaan dirna xaqiiqa raadinna ma dhihin marka arrintan waa wax shalay dhacay baarlamaankana arrintan dabagal buu ku samaynayaa guddiyada ay qusayso ugu dambeyntii jesow mooshi ka dhana xildhibaanada baarlamaanka waxay ka keeneen xukuumadda hogaaminaya shirdoon sidee bay kula muuqataa mooshikan ay xildhibaanadu ku codsan in kalsoonida lagala noqdo xukuumadda saaci waad mahadsantahay adeer arrintaas waa sax xildhibaano ilaa 100 qof gaarayo oo ka badan intii laga rabay ayaa mooshinkaa ku saxiixan waxayna cuskanayaan qodobka 69aad iyo qodobka 99aad oo xaq siinayo haddii ay daliilaan xubnaha golaha fulinta wasiirada iyo wasaaradaha dadka maamula ra-iisul wasaaraha kasoo bilow xaq u siinayo in kalsoonida ay kala noqon karaan marka hadde waxa weeyaan wasaaradihii haba yaraatee wax hawlaho ay qabteen ilaa iyo hadda 6 bilood aan la dhisin yahay haba yaraatee ma jirto hindisa sharciyeed dalkan lagu horumarinayo oo ay keeneen adeer 48 bilood ayaan mandate haysanaa xukuumaddan ay mandate haysataa 48 bilood waxaa baxday oo 8 bilood baa ka baxday 40 bilood baa dhiman waxaana dhiman intaasoo mashruuc intaasoo howlood oo gelin u baahan at least 200 kiis ayaa noo yeelo oo aan u baahanahay in dalkii nabadiisi lagu soo celiyo xasiloonida ay kamid tahay diiwaangelintii dadka horumarintii dowlad goboleedyada maamul goboleedyada wadada wax kasta oo howla oo noo baahan xataa ma dhamo 15 casho wax lagu hirgelin karo malaha intaasoo kiis marka 40 bilood ayaa ka hersan 40 bilood intaas in lagu hirgelin karo marka dhaqaaqa ayaan leenahay oo waxaan leenahay